بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديال halkani warbaahinta halbeega wararka waxaad ku soo dhawaataan warka warbaahinta qodobada adeegana waxa kamid noqonaya waxa maalintii labaad magaalada Muqdisho xiriir uga soconaya banaanbax xoogan oo dawladda federaalka Soomaaliya looga soo horjeedo waryaal tabinay dibadbax ka socday magaalada Muqdisho oo xabsiga loo taxaabay kadib jirdil xoogan oo loo geystay dawladda federaalka Soomaaliya oo gurbadkii ugu horeeyay gaarsiisay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan iyo fatahaad doobiga oo sii kordhaya Abu Bakr al-Baghdadi hogaamiyay Daesh oo la sheegay in duqeyn lagu dilay ciidamada ka tirsan maamulka Puntland oo u galay maamulka Somaliland xilli madaxweynaha maamulkaasi uu sheegay in xeriyooyinkeedu loo habeeyay qodobada ay idin soo gudbin doonaa saaxiibayaal taariikhdu waxa ay ku beegan tahay 27 bisha 10 Oktoobar 2019 oo diyaar garooba saaxiibayaal faafahinta qodobadii aad maqasheen oo dhameystiran channelkan subscribe calaamada kambalka furta muuqaalkeena saaxiibayaal si share gareeya ayna ku bilownay waxa magaalada Muqdisho maanta maalintii labaad si xiriir kaga soconaya dibadbax xoogan oo laga soo horjeedo dawladda federaalka Soomaaliya banaanbaxan ayaa waxa uu yahay mid rabshado wata waxaan dhigay dadweyne careysan oo isugu jira PLA iyo shacab maraya wadooyinka magaalada Muqdisho waxaa saaka banaanbax dhigay darawalada gaadiidka biyaalka loo yaqaano ee ka shaqeeya magaalada Muqdisho waxayna sheegeen inay ka cabanayaan dawladda federaalka Soomaaliya darawaladan ayaa waxay sheegeen in la weydiiyay canshuuro dheeraad ah oo ay ka rabto dawladda federaalka Soomaaliya waxayna sheegeen in aanan heli karin lacag dheeraad ah oo lagu soo rogay xilli ay xiran yihiin wadooyinka ay ku shaqeysan lahaayeen oo gabi ahaanba dawladda federaalka Soomaaliya wadooyinkii jaratay gaadiidkan dadweynaha ee ka yimaada deegaanka Madiina ee soo aada dhinaca degmada Xamarweyne ayaa maanta shaqeynayeen waxaana darawaladaasi ay dhigaan dibadbax weyn oo si weyn looga dareemay magaalada Muqdisho waxaana sameeyeen shaqo joojin darawaladan ayaa waxay sheegeen in dawladdu ay ka rabto canshuur joogto ah iyagoo aan haysanin wadooyin ay maraan isla markaana ay sii wadi karin hawshan shacabka u hayaan dibadbaxa ayay sheegeen in si laba jabaari doonaan magaalada Muqdisho ayaa waxa laga dareemay shalay maantay banaanbaxan ay dhigayaan darawalada gaadiidka loo yaqaano biyaalka isla markaana cabashadooda u gudbinayaan dawladda federaalka Soomaaliya ma aha markii ugu horeysay oo biyaalada ka cabanayaan canshuur dheeraad ah lagu soo rogo xilli wadooyinka magaalada Muqdisho inta badan ku xiran dawladda federaalka Soomaaliya ayaa marar badan waxa ay sheegtay inay furayso wadooyinka magaalada Muqdisho walow aysan jirin tilaabo ilaa hadda hore loo qaaday waryaalka urgalay magaalada Muqdisho ee ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya waxay u taxaabeen xabsiga waryaal gaari la yeeshana wariya ayaa maanta waxa lagu xiray gudaha magaalada Muqdisho xilli ay ka howlanaayeen tabinta wararka la xiriira banaanbax maalmihii la soo dhaafay magaalada Muqdisho ka soconayay banaanbaxa ayaa waxa uu mid ay soo qaban qaabiyeen gaadiidleyda ka shaqeysa magaalada Muqdisho waxayna ka cabanayeen lacag dawladda federaalka Soomaaliya ay ku soo rogtay wariyaashan ayaa waxay gaarayaan la yeeshana wariya waxaana ka kala tirsanayeen TV iyo idaacado ku yaala magaalada Muqdisho saddex wariye ayaa waxay u shaqeynayeen idaacada kulmiye magaalada Muqdisho halka mid kamid ah wariyaashan uu shaqeynayay TV goobjoog halka wariyaashanaadna uu ka tirsanaa warbaahinta Universal ee magaalada Muqdisho wariyaashan ayaa waxa ka xigay ka tirsan booliska Soomaaliya waxaana la sheegay in lagu xiray saldhigga degmada Hodan ee gobolka Banaadir kadib gaariga Cabdi Bilaah loo yaqaano oo wariyaashaasi la saaray waxa la sheegayaa ama qaar kamid ah maamulayaasha warbaahinta wariyaashaasi xabsiga laga sheegeen in la jir dilay wariyaasha dan xabsi loo taxaabay ayagoo garanaynin waxa lagu xiray shacabka ayaa waxay sheegeen markii la damcay wariyaasha in la kaxeeyo inay banaanbixi askarta ku xoomeen waxaana ay sheegeen in askartu xabado kor ugu rideen si dadka shacabka loo kala ceeriyo wariyaasha ayaa waxa looga helay hadda halka ay ku sugan yihiin wariyaasha ma la sii daayay mise xabsi ay ku jiraan waxaan isku daynay inaan xiriir kala duwan la sameeyno qaar kamid ah mas'uuliyiintii xarumihii xabsiga dhigay wariyaashooda waxaanay noo sheegeen ilaa hadda in aan la garanaynin meesha wariyaashii la aaday magaalada Muqdisho ayaa waxay kamid tahay meesha lagu dhibaateeyo saxaafadda xorta ah waxaana jira marar fara badan oo soo laabtay jirdil iyo xarig loo geysto wariyaasha ka shaqeeya magaalada Muqdisho ilaa haddana ma jirto cid si rasmi ah arrinta uga hadashay qobaro iyo falaqeeyaal ku xal dheer arrimaha saxaafadda ayaan waxa weydiiyay su'aal ah wariyaha hadii uu raadinayo xog xaqiiqi ah miyaa la xiri karaa si yeeshee waxaan jirin
qodob qeexaya in wariye meel maraya la iska xirto gudanaya waajibaadkiisa shaqo. Dowladda Federaalka Soomaaliya ee hogaamiyaan Xasan Cali Kheyre iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxay ku caanbaxday dhibaateynta saxafiyiinta ku sugan magaalada Muqdisho, mana ahan markii ugu horeysay oo wariye lagu dhibaateeyo magaaladan. waa marar fara badan waana soo laalaabatay arrintan, hase yeeshee ilaa hadda ma jirto tallaabo muuqata oo dowladda federaalka Soomaaliya ay qaadayso. ciidamada kala duwan ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa siyaabo kala duwan dhibaato u geystay wariyaasha magaalada, hase yeeshee waxaan la ogeyn halka arrintan ay ku dambeyn doonto. hay-adaha ka shaqeeya arrimaha saxaafadda ayaa waxay sheegeen arrintan baaritaan dhab ah lagu sameyn doono, arrintaana looga hari doonin maamulka degmada Hodan iyo cidda arrinta ka dambeysay. saaxiib arrinta wuxuu ku soo kordha halkan ayaad kala socon doontaan. ciidamada ku sugnaa Buuhoodle ayaa waxaa la sheegay inay ku biiraan maamulka Soomaaliland xilli madaxweyne Saciid Cabdilaahi Dani shalay uu sheegay in xerooyin loo sameeyay. ciidamada ku sugnaa magaalada Buuhoodle gobolka Cayn ayaa waxaa la sheegayaa inay ku biireen maamulka Soomaaliland, waxaana sawiro lagu baahiyay baraha bulshada ay muujinayaan gaadiid ciidamo fara badan oo Soomaaliland ku biiraya. ciidamadan ku biiray maamulka Soomaaliland ayaa waxay ka soo jeedaan gobolka Cayn gaar ahaan Buuhoodle, waxayna ka caroodeen markii dhismaha golaha deegaanka laga reebay beeshooda. warar hordhacahay ayaa waxay sheegayaan in odayaasha beeshani ay diideen in ciidamada ay ku sugnaadaan kana mid noqdaan ciidamada hubeysan ee maamulka dowlad goboleedka Puntland. arrinta ayaa waxay ka doorbideen in ciidamada lagu biiriyo maamulka Soomaaliland. wasiir ka tirsan maamulka Puntland ee ku sugnaalka ayaa waxay sheegeen in la xallin waayay cabashada beesha ayaa waxay noqotay mid soo laalaabatay, halka madaxweyne Saciid Cabdilaahi Dani shalay uu ku faanay inuu horumar ka gaaray dhanka iyo Buuhoodle qaabka qalabaynta ciidamadana waxa uu sheegay in si weyn loo nidaamiyay. taliyaha ciidamadan ugu weynaa ayaa waxa uu sheegay inay Soomaaliland ku biirayaan, halkaana ciidamo fara badan ay kula wareejiyeen saraakiil ka tirsan maamulka Soomaaliland. ma ahan markii ugu horeysay oo cutbe ciidamada ka tirsan maamulka Puntland ay ku biiraan maamulka Soomaaliland. geesta kale waxaa jira ciidamo ka tirsan maamulka Soomaaliland ee ku soo biira garabka maamulka Puntland. arrinta ayaa waxay noqonaysaa mid khilaaf xoogan kasii dhex xurunaysa maamulada Puntland iyo Soomaaliland. ilaa haddana waxaan la ogeyn halka khilaafka maamuladani uu saldhigan doono. wararka hadda naga soo gaaraya gobolka Cayn ayaa waxay ku soo waramayaan in saasaankaasi laga dareemayo, waxaana jira ciidamo fara badan oo maamulka Puntland halkaasi ku soo gurayaan. ilaa haddana waxaan la ogeyn cidda si rasmi ah kaga dambaysa go'aankan rasmiga ah oo ay qaateen ciidamada maamulka. beesha halka ku sugnayd ayaa waxaa la ogeyn tallaabada madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdilaahi Dani uu ka qaadi doono, walow golaha deegaanka ilaa weli khilaafkooda uu soo dhamaanin. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta gurmadkii ugu horeysay waxay geysay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan oo saameyn weyn ku yeesheen fatahaadda webiga Shabeelle ayaa maanta waxaa gaartay diyaarad siday shixnado gargaar, waxaana halkaasi ku sugnaa qoys fara badan oo dhibaato ka soo gaartay fatahaadda webiga Shabeelle oo maalmihii la soo dhaafay si laba jibaarmay. in ka badan kumanaan qoys ayaa waxay ku barakaceen duleedka magaalada, waxayna ka cabanayaan dhibaatooyin xoogan oo fatahaaddu ku reebay. dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka dowlad goboleedka Shabeelle ayaa waxay ugu baaqeen in arrinta wax qabtaan, waxaana jiray si degdeg ah jawaab ay u bixisay dowladda federaalka Soomaaliya. Ra'iisul Xasan Cali Kheyre ayaa waxa uu magacaabay guddi ka shaqeeya samata bixin dadkaasi. waxaa sidoo kale jiray guddi uu magacaabay madaxweynaha dowlad goboleedka Shabeelle Maxamed Cabdi Waare, kaasoo gudoomiye looga dhigay wasiirka wasaaradda gargaarka maareynta musuubiinka dowlad goboleedka Shabeelle. maanta ayaa waxaa la sheegayaa in diyaaradii ugu horeysay halkaasi ay gaartay, waxaa lagu soo waramayaa in laba diyaarad oo sidee shaqada gargaar halkaasi ay gaareen. مسؤولين كتير دولة فدرالك الصومالية أيها وحى يكسي يقول أيان مجالات بردويني سي وحوق قبطان أرنتان دبعتها كويس الشعب كالك سكون نول دتك أيها وحى لن نقولهن أما أي قبان عذرك للدوان أو كذا شفت هذا حبا أقول بالنادانية عرورته وحال الشيء ينود اللي عايش من بيوت ما ملك جوال كيران يكمل بلدويني أيها وحى يدلبنا يان إن أرنتا وحلا قبته باق دقة أي دولة فدرالك الصومالية هي باش عالم كصدرين waxaa sidoo kale xiran dhamaan xafiisyada dowlad goboleedka Shabeelle gaar ahaan gobolka Hiiraan waxaana buuxiyay biyo fara badan. magaalada Gabihaanba wax dhaqaaq kama jiro maanta ilaa yashay, waxaana Gabihaanba isaga baaxa shacabka halkaas ku sugnaa. magaalada Beledweyne ayaa waxay tahay hadda mid biyo marti gelinaysa, dadkuna yihiin kuwa banaanka jooga guryahoodii.
ilaa haddana waxaa muuqan dadaal xoogan oo halkaasi laga bixinayo. hogaamiyihii daacishta ayaa waxaa lagu soo waramayaa in lagu dilay duqeyn ka dhacday dalka Syria, waa sida uu sheegay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump. Mareykanka ayaa waxa uu qaaday howlgal lagu bartilmaameedsaday hogaamiyihii daacishta Abu Bakr al-Baghdadi sida uu ku dhawaaqay sargaal Mareykan ah oo la hadlay wakaalada wararka Reuters. sargaalkan ka tirsan ciidamada Mareykanka ayaa warbixin kooban ka bixiyay natiijada howlgal ay sameeyeen ciidamadooda, waxaana sheegeen in duqeyn ay ku dileen hogaamiyihii daacishta Abu Bakr al-Baghdadi. sargaalkan ayaa waxa uu sheegay ama warbaahinta u sheegay in howlgalkan kooxda Daacish lagu dilay bartilmaameedkoodu ahaa, waxaana uu ka dhacay duqeyntaasi gobolka Idlib ee dalka Syria. madaxweynaha dalka Mareykanka Donald J. Trump ayaa qorsheynaya inuu bayaan ka soo saaro aqalka cad kaasi oo kaga hadlayo kadib dilkii hogaamiyahaasi, waa sida uu xaqiijiyay afhayeenka aqalka cad. al-Baghdadi waxa uu hogaaminayay kooxdaasi 5 sano ee ugu dambeysay, isagoo ka mid noqday dhowr taliye oo ka howlgala Ciraaq iyo Suuriya, waxaana Mareykanku oo horey u sheegay in halkaasi Abu Bakr al-Baghdadi lagu dilay duqeyn kol hore, hase yeeshee arrintaasi waa beenowday. sanada kadib ayuu Abu Bakr al-Baghdadi ka soo muuqday shaashadaha, hase yeeshee hadda ayaa waxaa la xaqiijin karin in Abu Bakr al-Baghdadi la dilay iyo inuu nool yahay, balse Mareykanka ayaa waxa uu shaaciyay inuu xalay duqeyn ku dilay taasoo ka dhacday magaalada Idlib ee dalka Syria. guud ahaan warkii aad kala socoteen warbaahinta Albeeg intaasi ayaan ku soo koobaynaa saaxiibayaal, nabadgelyo.